koox aan la aqoonsan oo gubay masaajid ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug. Maxay tahay dhacdadan la yaab kale ee ka dhacday magaalada Dhuusamareeb? Maxayse tahay sababta ay u gubeen masaajidkaasi? Muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa ilo soco aynu ku bilownay faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhacdo argagax leh oo xalay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kadib markii la gooyay masaajid ku yaala xaafadda Horseed ee magaaladaasi. Wararka ayaa sheegay in koox aan la aqoonsan ay geysteen falkan iyagoo dab qabadsiiyay masjidka kadibna goobta ka baxsaday. Dabka ayaa saameeyay guud ahaan dhismaha masaajidka waxaana ku basbeelay dhammaan agabkii yeelay oo ay ku jiraan kutub quraanka oo dhex yeelay masaajidka. Sidoo kale waxaa gebi ahaanba burburay masaajidka sida laga arki karo sawir lagu soo baahiyay baraha bulshada kuwaasoo muujinaya baaxadda uu lahaa dabka. Sidoo kale qaar ka mid ah culimada gacanta ku haysay masjidka oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dhowr jeer ay la kulmeen hanjabaado iyo dhagax tuur lagu hayay jameecadda masjidka, haddana ay u soo xigtay weerarka lagu gooyay masaajidka. Masjidkan la gooyay ayaa qayb ka ah xarumaha diiniga ee hoostaga dariiqada Axmediyada ee Ahlusunna wal Jamaaca sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Arrintan ayaa dhalisay hadalhayn xooggan, mana jiro wax hadal ah oo ilaa hadda ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Galmudug oo ku aadan dhacdadaasi. Dhacdadan lagu gooyay masjidkan ku yaala magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa markaasi ka falceliyay dad aad u fara badan, sidoo kalena wuxuu dhaliyay hadalhayn xooggan oo ku aadan qaabkii loo gooyay masjidkaasi iyo kitaabaha quraanka halkaasi lagu gubay. Xaafadda Horseed ayuu ku yaalay masjidka waxaana gubay koox aan la aqoonsan, sidoo kalena ay hanjabaadyo u soo direen jameecadda masjidkaasi ku tukanaysay. Dabkan ayaa waxa uu saameeyay guud ahaan dhismaha masaajidka waxaana ku burburay agabkii yaalay iyo masjidka oo dhan. Sidoo kale masjidka waxaa ku jiray kutubo quraan ah waxayna sidoo kale noqdeen kuwa gubtay. Weer laga soo qaaday masaajidka ayaa caddeynaya inuu burburay dhismaha masaajidka iyo wixii agab ay dhex yeelay oo ay ku jireen kutubo quraan ah. Qaar ka mid ah culimada ayaa si weyn uga falceliyay falkan argagaxa leh ee lagu geystay masaajidka ku yaala xaafadda Horseed kaasoo dab la qabsiiyay, waxayna sheegeen in dhowr jeer hore ay la kulmeen hanjabaadyo iyo dhagax tuur lagu hayay jameecadda masjidka, haddana ay ku soo xigtay weerarka lagu gubay masaajidka. Masjidkan ayaa waxaa markaasi xarun u ahaa diiniga ee hoostaga dariiqada Axmediya ee Ahlusunna wal Jamaaca sida ay sheegeen dad goobjoogayaal. Haddaba sidee looga falceliyay dhacdadan la yaab kale ee lagu burburiyay masjidka? Cabdikariin Carab oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa arrinta uga falceliyay qofkii guri alla gubay iyo kii la damcaba asaga xisaab u taala. Sahara Cabdi Bare ayaa iyaduna tiri halka masjid ayaa meesha ugu yaal Axmediya qolada gubtayna waa la iska ogyahay ee tallaabo hala qaado. Sheekh Cabdalla ayaa isna ku jawaabay waa arrin ugub ah oo ah wax laga xumaado beed Ilaahay qofka gubay ujeedadu doona ka lahaadee waa qof aan wax fahamsaneyn. Cabdishakuur Raxima ayaa isna dalbaday in baaritaan lagu sameeyo falkan waa ficil argagax leh, wallaahi baaritaan waa in lagu sameeyo. Haddaba masjidkan ayaa gebi ahaanba burburay waxayna dadku uga falceliyeen siyaabo kala duwan iyagoo eedayn culus u jeediyay dadkii ka dambeeyay inay gubaan masjidka. Sidoo kale qaarka deegaanka ay sheegeen in la ogyahay dadka ka dambeeyay oo ah kuwa neceb dariiqada Axmediyada sida ay sheegeen shacabka. Haddaba ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka laamaha ammaanka ee magaalada Dhuusamareeb ee ku aadan dabkaasi la qabadsiiyay masjidka iyo dariiqada ku tukanaysay intuba. Waxaana haatan la filayaa inay war ka soo saarto maamulka magaaladaasi iyadoo noqonaya ficilkan mid aad argagax u leh, sidoo kalena ay la yaabeen dhammaan shacabka ku dhaqan Dhuusamareeb iyo guud ahaan gobollada dalka intuba. Ma sahlana in masaajid la gubo sidoo kalena dab la qabadsiiyo. Koox aan la aqoonsan oo gubay masaajid ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug. Maxay tahay dhacdadan la yaab kale
ee ka dhacday magaalada Dhuusamareeb. Waxayse tahay sababta ay u gubeen masaajidkaasi. Muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa ilo soco aynu ku bilownay faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhacdo argagax leh oo xalay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kadib markii la gooyay masaajid ku yaala xaafadda Horseed ee magaaladaasi. Wararka ayaa sheegay in kooxan la aqoonsan ay geysteen falkan iyagoo dab qabadsiiyay masjidka kadibna goobta ka baxsaday. Dabka ayaa saameeyay guud ahaan dhismaha masaajidka waxaana ku basbeelay dhammaan agabkii yiilay oo ay ku jiraan kutub quraanka oo dhex yiilay masaajidka. Sidoo kale waxaa gebi ahaanba burburay masaajidka sida laga arki karo sawir lagu soo baahiyay baraha bulshada kuwaas oo muujinaya baaxadda uu lahaa dabka. Sidoo kale qaar ka mid ah culimada gacanta ku haysay masjidka oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dhowr jeer ay la kulmeen hanjabaado iyo dhagax tuur lagu hayay jameecada masjidka haddana ay u soo xigtay weerarka lagu gooyay masaajidka. Masjidkan la gooyay ayaa qayb ka ah xarumaha diinagee ee hoostaga dariiqada Axmediyada ee Ahlusunna wal Jamaaca sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Arrintan ayaa dhalisay hadalhayn xooggan mana jiro wax hadal oo ilaa hadda ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Galmudug oo ku aadan dhacdadaasi. Dhacdadan lagu gooyay masjidkan ku yaala magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa markaasi ka falceliyay dad aad u fara badan sidoo kalena wuxuu dhaliyay hadalhayn xooggan oo ku aadan qaabkii loo gooyay masjidkaasi iyo kitaabaha quraanka halkaasi lagu gubay. Xaafadda Horseed ayuu ku yaalay masjidka waxaana gubay koox aan la aqoonsan sidoo kalena ay hanjabaadyo u soo direen jameecada masjidkaasi ku tukanaysay. Dabkan ayaa waxa uu saameeyay guud ahaan dhismaha masaajidka waxaana ku burburay agabkii yaalay iyo masjidka oo dhan. Sidoo kale masjidka waxaa ku jiray kutubo quraan ah waxayna sidoo kale noqdeen kuwa gubtay. Weer laga soo qaaday masaajidka ayaa cadeynaya inuu burburay dhismaha masaajidka iyo wixii agab ay dhex yeelay oo ay ku jireen kutubo quraan ah. Qaar ka mid ah culimada ayaa si weyn uga falceliyay falkan argagax leh ee lagu geystay masaajidka ku yaala xaafadda Horseed kaasoo dab la qabsiiyay waxayna sheegeen in dhowr jeer hore ay la kulmeen hanjabaadyo iyo dhagax tuur lagu hayay jameecada masjidka haddana ay ku soo xigtay weerarka lagu gubay masaajidka. Masjidkan ayaa waxaa markaasi xarun u ahaa diinagee ee hoostaga dariiqada Axmediya ee Ahlusunna wal Jamaaca sida ay sheegeen dad goobjoogayaal. Haddaba sidee looga falceliyay dhacdadan la yaab kale ee lagu burburiyay masjidka? Cabdikariin Arab oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa arrinta uga falceliyay qofkii guri alla gubay iyo kii la damacba asaga xisaab u taala. Sahra Cabdi Bare ayaa iyaduna tiri halka masjid ayaa meesha ugu yaal Axmediya qolada gubtayna waa la iska ogyahay ee tallaabo hala qaado. Sheekh Cabdalla ayaa isna ku jawaabay waa arrin ugubah oo wax laga xumaado beed Ilaahay qofka gubay ujeedadu doona ka lahaadee waa qof aan wax fahamsaneyn. Cabdishakuur Raxima ayaa isna dalbaday in baaritaan lagu sameeyo falkan waa ficil argagax leh wallaahi baaritaan waa in lagu sameeyo. Haddaba masjidkan ayaa gebi ahaanba burburay waxayna dadku uga falceliyeen siyaabo kala duwan iyagoo eedayn culus u jeediyay dadkii ka dambeeyay inay gu'aan masjidka. Sidoo kale qaarka deegaanka ay sheegeen in la ogyahay dadka ka dambeeyay oo ah kuwa neceb dariiqada Axmediyada sida ay sheegeen shacabka. Haddaba ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka laamaha ammaanka ee magaalada Dhuusamareeb ee ku aadan dabkaasi la qabadsiiyay masjidka iyo dariiqada ku tukanaysay intuba. Waxaana haatan la filayaa inay war ka soo saarto maamulka magaaladaasi iyadoo noqonaya ficilkan mid aad argagax u leh sidoo kalena ay la yaabeen dhammaan shacabka ku dhaqan Dhuusamareeb iyo guud ahaan gobolada dalka intuba. Ma sahlana in masaajid la gubo sidoo kalena dab la qabadsiiyo